السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السوداء وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت واسبتي وأنا صدح يلا باتنك بيش شناد ماي سنة كلا بدو كن إيه اللحية يلا باتنك مقال كان وحن ربعنا ندي كل وذا قوم حيتها السياسة العصب اللحر جرين كاركا وواحدة أمريكان كأقابل سن الجنسية ده يدل شده أي شلي كل واقعي dadka green card dalbanaya hadda kadib waa inay wadanka ka baxaan wadanka dibadiisa iyagoo joogana ay soo dalbadaan haddaba arintaasi iyay qusaynaysaa ayaan rabaa inaan idin la wadaago ma immigrantska ayay qusaynaysaa mase non immigrantska ayay qusaynaysaa arintaasi waan idin la wadaagaya xildhibaanad republican ah oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka gaar ahaan aqalka wakiilada ayaa waxay sheegtay inay diyaarinayso sharci qasab ka dhigaya in qofka Congress-ka ka mid noqonayo in uu noqdo qof wadanka Mareykanka ku dhashay sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka qofka noqonaya oo kale arintaasi saddex xubnood ayayna sawirkooda soo qaadatay oo Ilhaan Cumar ay ku jirto arintaasina waan idin la wadaagaya madaxweyne Trump oo wiilkiisa arooskiisa aan ka qayb galaynin maanta oo sabti ah isla markaana qorshihiisii sabtida iyo xadda baajiyay qolka situation roomka aqalka cadna golihiisa amniga qaranka kula shirsan ma dagaal ayaa dhacaya halka dhinaca Iran ay leedahay waxa qarka loo saaray yahay in heshiis isfahana Mareykanka iyo Iran ay wada gaaraan oo dagaalka lagu gabagabeynayo taliyaha ugu sareeya ciidamada Pakistan ayaa labadii maalmood ay la soo dhaafay Iran ku sugnaa wada hadallo kala duwan ayuuna mas'uuliyiinta Iran la yeeshay marinka Hormuz Iran maxay ka tiri arrimahaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maalnimadii shalahayd waxda USCIS ayaa waxa ay soo saartay isbedel dhinaca siyaasadda gaar ahaan qusaynaysa dhinaca green card-ka arintaasi dad fara badan ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay haddaba arintan horta iyay qusaynaysaa ma waxay qusaynaysaa dadka immigrantska mase dadka non immigrantska ayay qusaynaysaa labadaasi arin in la kala fahmo ayaa wanaagsan immigrantska macnaheedu waxay yihiin dadka doonaya waa dadka qaxooti ahaan wadankan ku yimid amaba visa ku yimid oo wadankan doonaya inay ku noolaadaan isla markaana ay ka shaqeystaan non immigrantskuna waxa ay yihiin dadka si ku meel gaar ah arin cayiman howl cayiman wadankan ugu yimid isla markaana sida dalxiis ama booqasho ama ganacsi ama waxbarasho markaas kadibna ay tahay inay laabtaan marka qorshahooda uu u dhamaado marka arintan isbedelka siyaasadda ay qusaynayso waa dadka non immigrantska ee ma ahan dadka immigrantska sida halkan aan idinku sharaxi doonaba waxa ay waxda USCIS ay leedahay waxa aan doonaynaa inaan wax ka bedelno siyaasadeeni dhinaca dalbashada ee immigrationka waxana la yiraahdaa adjustment of status qofku waxa uu arday ahaan ayuu ku yimid wadankan jaamacadiisii ayuu dhameystay markaas kadib shaqo ayuu helay isagoo through shaqadiisaas u maraya ayuu green card dalban jiray marka waxa la yiraahdaa qofku waxa uu bedelayaa qaabkii uu wadanka ku joogay markii hore temporary ayuu ku joogay hadda waxa uu doonayaa qof sharci leh oo green card leh oo deganaansho rasmi ah haysto inuu noqdo qof ayaa dalxiis ku yimid dalxiiskii kadib markuu waqtigiisii laaban lahaa uu gaaray ma uusan laaban booqasho ayuu ku yimid ganacsi ayuu u yimid arrimahaasi oo idil ayaa waxay tahay waxyaabaha ay dawladda diidayso sharciyana wadamada caalamka arintaasi waa ay ka jirtaa haddii wadan aad dalxiis ku tagto macnaheedu waxay tahay deganaansho kama raadsan kartid ama booqasho aad ku tagto dhinaca shaqooyinka dadka xirfadaha leh oo shaqooyinka soo dalbada iyaga nafsad ahaantooda haddii company ay shaqo ka helaan through companygaas iyagoo maraya ay adjustment of status wax la yiraahdo ay sameyn jireen oo ah in ay bedelaan qaabkii wadanka ay ku joogeen markii hore qof si ku meel gaar ah shaqo ugu yimid ayuu ahaa waxa uu dalbanaya green card markaas kadibna deganaansho rasmi ayuu helaya marka dawladdu waxyaabaha ay doonayso inay wax ka bedesho waa arintaasi laakiin dadkii qaxootiga ahay ma qusaynayso oo markaan aqriyo xitaa memada 6 buu ka kooban oo waxda USCIS ay soo saartay kuma qorno meel dadka qaxootiga ah lagu sheegayo marka dadku inay sidaasi u fahmaan ayaa fiican marka dadka non immigrantga oo sida ku meel gaarka ah howlo cayiman wadankan ugu yimid waxa kamid ah dadka dalxiisayaasha dadka ganacsiga u imaanaya dadka waxbarashada u imaanaya dadka si ku meel gaar ah inay wadankan uga shaqeeyaan doonaya dadka dalxiiska iyo waliba ganacsiga u imaanaya waxa la siiyaa viisayaasha B1 iyo B2 F1 waxa la siiyaa ardayda halkan waxbarashada u imaanaysa H1B na waxa la siiyaa shaqaalaha xirfadda leh oo iyagu kambaniyada ay keensanayaan marka labadaasi arin ma ahan in la isku qalto hadda dawladda waxa ku qoran qoraalka ay bogeeda USCIS soo gelisay iyo waliba memada ay soo saareen oo 6 bog ka kooban in arintan ay tahay in ay qusaynayso dadka
non immigrantska oo dadka immigrantska kuma qorno marka waxay leedahay maadaama wasaaradda arrimaha dibadda ay arintan hoos imaanayso qofku marka uu waxbarashadiisa dhammaysto waa inuu wadankiisii ku laabtaa markaas kadib qunsuliyadda ama safaaradda halkaasi ku taala maadaama wasaaradda arrimaha dibadda ay safaaradaha iyo qunsuliyadaha ay hoos yimaadaan isagoo wadankiisa joogo ayuu halkaasi green cardkiisii ka apply gareynaya markaas kadib haddii loo diido iyo haddii la aqbalo waa meesheeda marka dowladdu waxay leedahay marka laga reebo xaaladaha aan caadiga ahayn dhammaanba dadkaasi sida kumeel gaarka wadanka ku joogay waa inay wadankoodii ku laabtaan halkaasina green cardka ay kasoo apply gareeyaan maxay yihiin marka dadka laga reebayo waa dadka oo victimska ah of violent crime wadankoodii ayaa dhibaato xun ay ku gaartay dadkaasoo kale waa laga reebay dadka laga ganacsado oo human trafficking la yiraahdo dadkan sida haweenka kale jirkooda laga ganacsado iyagana waa laga reebay marka laga reebo arrimahaasi oo idil inta kale waxaa loo baahan yahay dadka non immigrantska marka ay doonayaan in adjustment status ay sameeyaan inay wadankoodii ku laabtaan isla markaana ay halkaasi kasoo apply gareeyaan arrintan sidoo kale waa arrin cusub oo weli aan horey u dhicin كل دعوة فرا بدن أي لجو جود بندونا لكن سياسة داسي استبدل كا أي واحدة USCIS تو أي شلي كل واقعي مركا هدي وحيابك لا يكسر كردنا وان أركيدونا لنا على كونغرس كأن أدو قفك حبين كونغرس كه نقونا يشنت بقول يصدر يشنت حبنات ما أهن إنه مواد مريكنا يهاي أو قف معناها ودن كان كل شيء إنه نقضى سو ودن كيسي كل شيء أمريكان كيميد أو على شذا قاطي أيو كونغرس كمل نقون كرا لكن حلوان اللي يرادو نانسي ميس أو كسو جدا قبل كسات كولوراينا سنة كان قدوميها قبل كاسي وترتميسا أي قرال كان برتي فيسبوك قصو قرتي وحين دونيسا إن هرنتاسي وحكا بديشو أو قفك كونغرس كمل نقونا يهدا كدب ونقضى سيدا مدحوينها هي مدحوين كحيانك وقف ودن كان كل شيء وإنه نقضى وصن نقون قف على شذا مريكان كقاطي waxa ay soo qaadatay magacyada saddex xildhibaan oo hadda aqalka wakiilada ee Congress-ka ku jira waxa koow ka ah Ilhan Umar sidaan ognahay Soomaaliya ayay ku dhalatay waxa kamid ah xildhibaanka la yiraahdo Shiri Tanader oo isaguna wadanka India ku dhashay oo laga soo doorto gobolka Michigan Pramila Jayapal oo iyaduna India ku dhalatay isla markaana laga soo doorto gobolka Washington State waxay leedahay marka saddexdan xubnood dhamaantoodba wadanka dibadiisa ayay ku dhasheen oo wadad ajnabi ah isla markaana ma ahan muwaadiniin Mareykanka dad Mareykanka ku dhashay oo halkan ku dhashay ma ahan sidaas darteed ma ahan in ay fadhiyaan oo ay ka mid noqdaan Congress-ka Mareykanka waxaan rabaa in cadeey tiri maalin kasta qofku waa inuu daacad u noqdaa Mareykanka marka waxay tiri waxaan soo saarayaa sharci ahayd mar hore in la soo saaro isla markaana dastuurka in isbedel lagu sameeyo oo loo baahdo dhamaanba xubnaha ka mid noqonaya Congress-ka garsoorayaasha federaalka ah iyo saraakiisha ay ansixinayaan Congress-ku dhamaantoodba waa inay noqdaan dad Mareykanka ku dhashay arrintan waxay tahay waa inay la mid noqoto sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo loo baahan yahay qofka noqonayo inuu yahay qof Mareykanka ku dhashay marka waxay leedahay dadkan Congress-ka fadhiya isla markaana sharciyada Mareykanka sameynaya garsoorayaashana sidoo kale ansixinaya Mareykankana ku metelaya guud ahaanba caalamka waxa loo baahan yahay inay yihiin dad Mareykanka daacad u ah la oo aysan daacad u ahayn wadan kale marka waxay leedahay arrintan in muddo ah ayaan waxaan ogolaanay in dadka ku dhashay wadanka dibadiisa in xubnaha Congress-ka ay ka mid noqdaan arrintaasina waxay cadeyn cad u tahay in danta Mareykanka ay ka hormarinayaan danta wadankii ay ka yimaadeen maalin kasta arrintana waxa loo baahan yahay in la soo gabagabeeyo oo dastuurka isbedel lagu sameeyo marka xildhibaanadan saas ayay leedahay sida sharciga ah qofku marka uu Congress-ka ka mid noqonayo labada aqal shuruudo ayuu kala leeyahay aqalka wakiilada marka uu ka mid noqonayo da'diisu waa inay 25 jir tahay isla markaana uu muddo 7 sano ah dhalashada Mareykanka uu haystay gobolka uu ka tartamayana uu markaasi degan yahay dhinaca aqalka wakiilada waa sidaas sanadkana sidoo kale waxa ay tahay in uu 30 jir yahay qofka ka mid noqonaya aqalka sanadka 9 sanana uu dhalashada Mareykanka haystay gobolka uu ka tartamayana xilligaasi uu degan yahay marka hadda saddexdan xubnood oo Ilhan Umar iyo xildhibaanka la yiraahdo sidoo kale Shiri Tanader iyo waliba Pramila Jayapal ayayna sawirkooda iyo magacooda soo qaato waxay leeyihiin xubnahan aqalka wakiilada ayay nala fadhiyaan Mareykankana ma aysan ku dhalan marka siyaasadaasi waa inaan bedelnaa arrintaasina waa arrin muhiim ah oo aan rabay inaan idila socodsiiyo madaxweyne Trump wiilkiisa weyn ee Don Jr ayaa waxa uu ku aroosayaa jasiirad ku taala Bahamas madaxweynaha waa la weydiiyay waxa la yiri ma ka qayb galaysaa waxa uu howlo fara badan oo Iran ka mid tahay ayaa taala marka arooskiisa xilli xun ayuu ku soo aaday kama qayb galayo
Trump xitaa sidoo kale toddobaadkan sabtida iyo xadda waxaan ognahay madaxweynuhu ama Florida ayuu aadaa ama New Jersey uu ku leeyahay meelo golofka lagu ciyaaro uu golf ku soo ciyaaro toddobaadkan amaba weekendigan sabtida iyo maanta oo sabtida iyo beri axada qorshihiisii dhan waa uu baajiyey si degdeg ah ayuuna aqalka cad shalay gelinkii dambe ugu soo laabtay waxaa la leeyahay qolka situation roomka ayaa isaga iyo golihiisa amniga qaranka ay kulan gu leeyihiin marka ma weerar ayaa la qaadi rabaa ayaa laga wada hadlayay laakiin lama oga arrintaasi sida ay noqonayso sida warbaahinta Mareykanku ay ilaa iyo xalay ilaa iyo maantaba ay ka dhawaajinayeen. He's given this weekend as a loose deadline for a potential resumption of airstrikes, and we've just learned that not only will the president not attend his son's wedding, but he's also canceled planned travel to his club in New Jersey and will instead remain at the White House this weekend. sidoo kale magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran waxaa labadii maalmood ee la soo dhaafay joogay taliyaha guud ee ciidamada Pakistan ninka la yiraahdo Qasim Munir waxa uu kulamo gooni ah la yeeshay madaxweynaha waddankaasi Masoud Pezeshkian afayeenka baarlamaanka Mohamed Baqir Qalibaf iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ninka la yiraahdo Abbas Araghchi marka kulamadaasi waxa looga wada hadlayay xiriirka labada wadan iyo sidoo kalena sidii loo dhameyn lahaa dagaalka Mareykanka iyo Iran u dhaxeeya isla markaana heshiis loo gaari lahaa marka waxa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran oo la yiraahdo Ismaaciil Baqai uu sheegay in hadda qarka loo saaran yahay heshiis is-afgarada in Mareykanka iyo Iran ay kala saxidaan oo dagaalkan lagu dhameynayo arrimo dhowr ah ayuu ka hadlay waxa uu yiri aad ayaan u kala fognahay haddana waan isku dhownahay waxa uu yiri 14 qodob aan soo bandhignay ayaa laga wada hadlayay waxana uu sheegay in hadda 30 ilaa iyo 60 maalmood ee soo socda inta badan qodobadaasi laga wada hadli doono ilaa iyo heshiis laga gaaro laakiin hadda waxa uu yiri isfaham ayaa qarka loo saaran yahay inta badan arrimaha la isku hayo waa nuclearka Iran maxaa laga yeelayaa marinka Hormuz waxana uu sheegay in marinka Hormuz Mareykanka arinta marinka Hormuz aysan qusaynin oo waxba aysan ka galin marka hadda waxyaabaha laga wada hadlayo waxay tahay in dagaalka la gabagabeeyo Mareykanku uu qaado go'doominta uu saaray marinka Hormuz gaar ahaan shidaalkii Iran ay dhoofinaysay Iran ay marinka Hormuz furto laakiin hadda xilli waliba madaxweyne Trump uu golihiisa amniga qaranka la shirsan yahay Iran waxa ay leedahay waxa loo dhow yahay in heshiis isfahama la gaaro marka waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordha laakiin xiisadu waa cakiran tahay haddii maalinta Isniinta aysan isfaham labada wadan aysan isku soo dhawaanin waxa laga yaabaa in mar kale uu dagaal ka dhex qarxo waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo kordha aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabadgelyo